السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأبشر حسن اشتفتم أم أبشر حسن فاونديشن أنا قوم من محمد عبدية أمان ولا له ميلان جوب نبا إلهي هاي نقولنا بديالو فيديو كان إن شاء الله وحان ربا إنا قصدي أم الشيكدي أصلي إذن كله وداغو لبا قيبود أيان إلا أي حد سوق قليي لكن لبدا قيبود بقيب يعني قاب أو لايف waan markaa usoo galay oo aan damcay inaan saa maaragtay sheekada idin kula wadaago laakiin mar walbaba maadaama maxaa la dhahaa qoraalada soo dhexgelayay ama commentiska oo qof su'aal soo weydiinayay aan ka jawaabayay iyo waxyaalo badan oo soo dhexgalay markii live lagu soo tabiyo ayaa xoogaa ay adkaatay fahamkeedii marka insha Allah hadda ka bacdi ayadoo qaybo ah ayaan maarkan qaab video ah usoo gudbinaya marka insha Allah qisadii ayaa inoo bilaabaya asli waa gabar ku dhalatay magaalada Muqdisho dagaaladii qabaliga ahaa markay bilowdeen asli wali waxay ahayd ilmo yar oo aan qaan gaarin asli waxay ka dhalatay family danyar hooyadii iyo aabuhu qutliyoonkooda ay suuqa ganacsadaan oo ka soo saaraan wixii caruurtooda ay maaragtay ku qoodin lahaayeen qudaarta maalinlaha ah ee laga iibsado asli waxa ka weyn gabar ilmaha walaalaheed inta kale way ka yaryar yihiin dagaalkii markii uu qarxay asli iyo familkeedii way ka qaxayaan magaaladii Xamar ama Muqdisho waxayna u qaxayaan goboladii markaa gobolka Banaadir ku hareereysnaa dagaalkii markuu sii xoogaysto goboladii kalena ay dagaaladii sii saameeyaan qaab qabaliyana uu isu bedelo waxay noqonaysaa inay gobolkiina ka sii qaxaan oo markaa ay gobolkii labada waarid ee asli dhalay oo iyagu markaa qabiilka hore wadaagay ay u qaxaan maadaama qabiilkii sii kala baxo lafa hoose ay sii jiraan asli iyo familkeedii sidii ayay gobolkii adigu safar dheer kadib gobolkii ay hooyadii aabuhu ka soo jeedeen ayay soo gaarayaan safarka dheer asli waxyaalo badan ayay kala kulmaysaa ayadoo ilmo yar ah oo wali qaan gaarin oo aad u xanuun badan waxa kamid ah xanuunadaas asli ilmo yar oo walaalkeeda ahaa oo markaa ilmaha ugu yaraa ayay maalmaha kamid ah iyadoo dhabta ku haysa maadaama safarka dheer iyo gaajada iyo dhibka ayagoo markoodii horena ahaa familba aanan dhaqaale fiican haysan haddana ay markaa dagaalada iyo dhibaatooyinka wadanka uu marayay ayaguna ay la qabeen gaajadii iyo maaragta infectionkii maxaa la bacteriadii dadkii caruurihii oo dhan ay ku jiradeen in ilmaha yarka macaluul iyo dhibaato uu la kulmayo maadaama ilmahii ugu yaraa markaa uu ahaa uu asli dhabteeda ku dhimanayo asli taas dabcan waxay ku noqonaysaa trauma yani ilmo yar bay ahayd ilmihii yarka walaalkeed iyadoo haysa oo markaa hooyadu ay uga tagtay maadaama iyadu ay ahayd curadii labaad badanaa aabaha iyo hooyada iyo asli walaasheed Suleekha oo ka weyn waxay ahaayeen dadka badanaa familka u soo raadiya maaragtay qutliyonka oo suuqa fariista oo wax iibiya aslina badanaa waxay ahayd yani hooyo camal inay maaragtay caruurtii ka yaryaraa iyadu markaa ay hayso oo celiso oo wax siiso ilmaha yarka aadka u xanuunsan dhibaatada yani qaxa iyo dhibaatadu leeyihiin taabtay asli waxay ku noqonaysaa runtii wax yani mahadha ah oo qalbigeeda taabta maadaama walaalkeed dhabteeda uu ku dhibanayo dhibku intaa kuma ekayn way qaxayaan familkii ilaa ay maaragtay yimaadaan gobolkii markaa ay ka soo jeedeen hooyadii aabuhu kadib maadaama dhaqaale jirin gobolkii laftirkiisa dagaalo hareereeyay oo sida gobolada dalka oo dhan burburkii iyo uu taabtay dhaqaale xumadii familka aabaha asli ka soo jeedo oo ahaa famil markoodii horeba ahaa dad xoolo dhaqato ah u badnaa yani inkastoo Soomaalidu wada xoolo dhaqato tahay haddana familka aabaha waxay ahaayeen dad
aan magaalada ku badnayn ee u badan maaragta miyigii iyo xoolo badanna haysta. meesha familka hooyadeed kasoo jeedo reer abtigeed asli ay ahaayeen dad miyigii ku yaraaday laakiin magaaladii ku badnaa, siiba magaalada xamar bay ku badnaayeen. taana waxay keenaysaa markii la qaxo in ay goboladii kale ee maaragta wadankii Soomaaliya ku hareereysnaa, yacni gobolada dariska nala ah, wadamada dariska nala ah sida Kenya iyo Ethiopia kale, inay familadii hooyadeed kasoo jeeday ay u qaxaan badankoodii kadibna ay dhoofaan oo maarkin oo ay kasii galaan dibadihii iyo wadamada kale ay uga sii haajiraan. saa darteed asli waxay hooyadeedii aabaheed go'aan ku gaarayaan in asli intay ugu weyn tahay oo markaa ilmo kale markaa hooyadu ay dhashay, maadaama hooyadu ay xaamilo marka la noqotay oo markaa ay nuujinaysay laga reebo, iyo gabadha weyn oo hooyada iyo aabaha markaa maxaa la dhahaa dee suuqa la fariisata. inta asli ka yaryar oo 4 ahayd iyo asli in intoodiiba loo diro baadiyaha oo asli ay ku hayso baadiyaha ay kaga warqabto walaalaheed maadaama iyada ugu weyneyd. muddo markii caruurtaasi baadiyaha jirto oo aslina dee iyada ugu weynto korinayso, baadiyaha ku korinayso, aabihii iyo hooyadiina maaragta iyo gabadhii weyneyd iyo ilmaha yarkaan ay magaaladii ku nool yihiinoo ay la daalaan dhacayaan dabcan inay maaragtay familkii dhaqaalihoodii ay soo saaraan. ayaa kadib waxaa muddaas kasoo wareegatay, dabcan waqtigu wuu socdaa. waxaa dhacaysa markaa in walaalaha ama ehelkii kale ee asli hooyadeed ay lahayd familkeedii in ay markaa xoogaa marba usoo diraan asli hooyadeed oo ay soo maaragtay taakuleeyaan. xoogaana dee dagaaladii iyo wixii haddii yara qaboobeen, aabihii asli wuxuu helayaa shaqo oo darawalnimo ah, xoogaa uu ka shaqaynayo, dhaqaalahoodii wax yar buu isoo kabaya. markaa go-aan waxaa lagu gaarayaa wiilashii asli la dhashay oo markaa asli ka yaryaraa oo markaa la bilaabay iskuulle iyo maarkino in caruuraha loo bilaabo in la keeno wiilashaas oo iskuullada lagu daro oo maarkino at least ay iyagu wax bartaan. sidii baa wiilashii waxaa lagu keenayaa magaaladii oo maaragta iskuulladii lagu darayaa. asli iyo gabar walaasheed ah oo markaa ka yar waxay noqonaysaa inay baadiyihii joogaan, wiilashii walaalaha ahaana la keeno magaaladii oo iskuulladii lagu daro. muddo ka bacdi waxaa ka imaanaysa wadanka Sweden gabar asli habararteeda hooyadeed la dhalatay oo caruurna iyagoo yaryar Sweden la gashay, qaar kalena ku dhashay, ayaa waxay damcaysaa ama yacni go-aan ku gaaraysaa in ay Qaahira usoo guudho ama Masar oo caruurteeda markaa halkaa ay maxaa la dhahaa ku koriso. laakiin waxay u baahanaysaa qof ma arkinoo caruurtii mararka qaarkood amaba ka reebo oo guriga uga hooseeya, maadaama ay iyadu safar badan tahay oo ay rabto inay beec mushtarna samayso. odageedii oo markaa Sweden ku haray oo ka shaqeeyana ay mar walba booqato. sidaa darteed walaasheed bay usoo cidirsanaysaa in ay gabdhaheeda ay gabar maaragtaa usoo dirto. asli walaasheed ka weyn Suleekha maadaama gabar ay ahayd aad u qurux badan maasha Allah, waa la guursaday oo iyo markayba saaba usoo qaangaadhay ayadoonba weli qaangaarin baa maaragtay mar walbaba yani waaridku ay waxay ku hayeen runtii yani ay ka taxadarayeen maadaama gabar qurux badan ay ahayd oo maarkin oo mar walbaba dabaca raggu iska badnaa. laakiin aakhirkii markay gabadhii soo yara qaangaadhay iyadiina dee xoogaa ay markaa istiri ama noloshan hadda waaridku ay ku jiraan nolol ka fiican aad heshaa. markaa nin adigu dhalinyaro ahaa kasii weynaa iyada oo markaa shaqaysta oo maxaa la yidhahdaa xoogaa dee ka dhaqaala roon familka ayaa gabadhii guursanaya.
saa darteed asli waa laga keenay baadiyihii maadaama walaasheed ka weyn la guursaday oo markaa hooyadii aabihii ayay waxay la joogtaa magaaladii oo iyadii baa maaragtay waxay noqotay inay booskii walaasheed gasho oo markaa ay suuqii wax ku iibiso muddaa kasoo wareegatay marka waqtigaa waayo asli markii walaasheed la guursaday muddaa kasoo wareegatay habarartii marka waxay marka leedahay waxaan u baahanahay gabar caruurta ii haysa iga reebta hooyada marka asli markaa waxay is leedahay labada gabdhood ee kale asli ka yaryara baadiye jooga mid yar markaa oo 12 adigu 11 meelaha jirtay iyada u dir si ay jaanis waxbarasho iyo dee nolol u hesho maadaama qof yar ay tahay laakiin habarartii baa diidaysa oo waxay leedahay anigu qof weyn oo waxaan rabaa dee maaragtay mas-uul qaadayo hawl qaban kare ilmo yar oo iyagiiba in la hayaa u baahan ma rabo marka sidaa darteed asli ii soo dir adigu asli jaaniskaas bay helaysaa waayo asli qaab kale ee markaa iyadu awooday ay isku maxaa lahaa dabari kartayna ma jirin familkeeduna waa u baahnaa sidii bay asli markaa waxay ku imaanaysaa magaaladii qaahira caruurtii habararteedna ay ku korinaysaa habarartu markaa at least familka way maaragtay sida shaqaale camal bay asli ugu shaqaysaa habararteed oo caruurta ay ugu korisaa asli waxbarasho ma hesho yacni wax iska bedelay situationkii asli aanan ahayn inay dee qaahiro ku nooshahay hadda masar ku nooshahay ma jiro suuqii baysan fariisan laakiin caruur bay korisaa oo maarkinoo tirtir iyo dhaq iyo kare iyo howlahaasi ku jirtaa wax intaa ka badan oo nolosheeda kusoo saa'iday ma jirto laakiin at least habarartu hooyada ama familka asli bay xoogaa lacag u dirtaa maadaama asli iyada la joogto dee u shaqayso muddaa kasoo wareeganaysa muddadaa kadib waqtiguna waa kan isguraya baa gabar ay saaxiiban yihiin asli habararteed oo Sweden ku nool iyadana baa waxay imaanaysa fasax ahaan magaalada Cairo u imaanaysa asli markaa habararteed way maqan tahay habarartii markaa waxay ku leedahay gabadha aan asxaabta nahay ayaa maaragtay imaanaysa waxaana rabaa inaad maarkino si fiican dabcan u soo dhaweysid sidii bay asli markaa gabadhii u soo dhaweynaysaa maanta intaasaan ku ekeynayaa haddii kale videogan ugu sii dheeraanaya insha allah waxaan rajaynayaa inaad dhankiina maaragtay haddaa ka heshaan sheekada inaad maaragtay subscribe-ka iyo like-ga iyo share-kaba aad ku dhufataan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.